nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam nin saxaabiya uu imaan jiray mar kasta oo uu u yimaado waa murugsan yahay ninkaas wajigiisu waa madowye muruga ka muuqata markaas nabigu la yaabo marna ma farxo ninkaas markaas rasuulku ku yiri sallallahu alayhi wasallam waa maxay mar walba muruga ku saaran dadku waa farxaan mararka gabal marar badan ay farxaan khaasatan nabiga haday la joogan sallallahu alayhi wasallam waa maxay musiibada adiga ku haysata mar kastoon ku arko waa murugsan tahay saasa nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri rasuulka allah islaamka intaan soo galin arin aan sameey markay ugu soo dhacdo markaasaan murgaya markaas waxaan isleeyahay adiga dhan hadaan lagu abuuri lahayna ku rooneed hadaad noqon lahayd nasiyan mansiya wax la halmaamo hadaad noqon lahayd kaaga roonaa lahayd sidaan maxay ahayd uu yiri wuxuu yiri waxay ahayd jaahiligii gabar xasan lahaa ayadoo uur lahan ka safray yiri markaan safray muddaan ka maqnaa markaan soo laabtay aan waxaan imid ayadoo dhashay gabar yar oo aad u qurux badan oo caruurta la ciyaarayda muddaan maqnaayo gabar qurux badan oo caruurta la ciyaarayda oo caruurta markay ka dhex muuqato quruxda aad la yaabayso markaas ayaan is-iriyu yiri gabadhan day weynaato wixii waa gaalo waa la isku duulayaa waa la isdhacayaa biri qola xoog ku wada karta ayadaa xumaan samay karta gabadhaadiya waxa dhashay soo yeeri karta ceertaas ma qaadi kartid markaasaan gabadhii xaaska waxaan ku iriyuu yiri gabadha iigu labis waa aan soo celinaya meelahaan la aadayaa shaki ugama jirin yiri gabadha hooyadeed inaan doonayo inaan dilo marka mara diidi karto dumarku go'aan male qof shakhsiyad leh oo wax diidi kara oo wax yeelaya maahan waa qof xoolo camal leeyahay markaasay iigu labisaan yiri waa u shanlayday waa u qubayday waa u shanlayday waa u saliidayday waa u labisay intaasna waxay leedahay uu yiri yaa rajul la tudayic al-amana qoraynina amaanadaas ilaahiya kugu amaanaysa hadayicin ay leedahay way ogtahay inaan soo dilayo markaasaan wadayuu yiri gabadhii waxaan la aadayu yiri buuraha dhexdooda meel god ah oo aan ceel ku oga gorofa markaasaan ceelkii dul istaagayu yiri mar waxa qalbigaygu ila xanuunsanaya ana dhalay wax dambiyana ma gelin quruxda gabadha lama quuri karo marna waxaan leeyahay yiri ceebay soo jiidayda markii dambaan ta go'aan qaatan ku tuuray markaas ay u sii ordayday ay salka ku dhacday inay meyd noqoto inaan hubsadaan rabaa uu yiri markaas ay salka waxay ka leedahay yaa abataa qad dayacta al-amana abo waa dayacday amaanadii sidaas ayay ka leedahay waxa weeyaan ceelka salkiisa ilaa naftu ay ka baxday wuxuu yiri mar alla markay ugu soo dhacdo aan madoobaada aniga dham nabigiyan fiiriyo nabiga ilinu iska shubaya markaasuu yiri wallahi qof gaalnimadii dambi uu ku sameeyay haddaan u ciqaabayo waan ku ciqaabi lahaa laakiin al-islaamu yahdimu maa qabla yajubu maa qabla islaamku wixii ka horreeyey waa dumiyaa islaamku wixii ka horreeyey waa uu dumiyaa laakiin wallaahi haddaan qof banu aadana u ciqaabi lahaa dembi uu galay fil jaahiliya islaamka ka hor adaan ku ciqaabi lahayd oo kuu xadi lahayd oon kuu dili lahaa gabadhi marka nuucaas ayay ahayd nolosha dumarka gabadha wax xuquuqa ma lahayn meher la siimayn qiimo leh waxay ahayd dhaxalka inaysan waxba ku lahayn day hooyadeed dhimato hadday aabbaheed dhinto caruurtay dhashay hadday dhintaan dhaxalka waxba kuma lahayn dhaxalka waxba kuma lahayn dhaxalka waxba kuma lahayn soo uma jeedid wax ay dhaxalka ku lahaayeen male wax xuquuqa ma lahayn hadday aabbaheed dhinto xoolo kasta uu ka tegey qaninimo kasta uu ka tegey ayaduna ay tahay dadka qofka ugu faqiirsan hal shilin laga siimo hal shilin laga siima hadday aabbaheed dhinto hooyadeed hadday dhimato dhammaan waa wada nuucaas wey waa wada nuucaasay ahaayeen waxaa dhacayday ninka 20 dumara 50 dumara inuu iska guursado
oo wax xad ah oo la yiraahdo intaas ka badan uma banaana ma jirin ayagiina xuquuq ma leh nabiga sallallahu alayhi wasallam nin 10 qaba u yimid oo soo islaamay 10 wata soo ma jeedid marka dayacaad iyo ciriiriga nololeed wax qiima oo ay leeyihiin ma jirin nuucaasay wada ahaayeen nuucaas ay ahaayeen sahih muslimka waxa ku sugan Umar ibn al-Khattab inuu yiri wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin-nisa'i amran wallahi waqtigi gaalnimada dumarka wax qiima inaysan agteeda kala hayn wax tixgelin ah oo ay agteeda kala hayn ma jirin hatta anzala Allahu ta'ala fihinna ma anzala illa ilahi soo dejiyay quraanka uu soo dejiyay iyo ahadiista uu soo dejiyay ee xuquuqdooda qeexaya korna u qaadaya oo ilaahay qayb siiyay oo wax weyn ragii la xadeeyay guurkii oo dhaxalkii qayb laga siiyay oo meel walba xuquuqdeedii ilaahay ku cadeeyay ilaa taas ay timid nuucaasan ahaynu marka nuucaas noloshii aheed maxaa islaamku ku bedeli quraanka kariimka marka aad fiirido qaabka uu hadlayo waxa dareemaydaa xuquuqda uu ilaaliyay ee aad u faraha badan kuwa ugu cadcad xuquuqdii dumarka ka mid ah quraanka kariimka suurad dhan ilaahay wuxuu ku magacaabay suuratu nisaa suurad dhan ilaahay wuxuu ku magacaabay hal gabar magaceed suuratul maryama suurad dhan ilaahay wuxuu ku magacaabay gabar kale sifadeed suuratul mujaadala laakiin quraanka kariimka anbiyo marka laga tago